Maskaxdu waa meesha laga hago nolosha qofka. Haddii maskaxdu degan tahay, qofku wuxuu dareemayaa xoog, rajo iyo nolol. Laakiin haddii maskaxdu daasho, wax walba way adkaanayaan. Dad badan maanta jir ahaan way nool yihiin, laakiin maskax ahaan way daaleen. Waxay ka qoslayaan bannaanka, laakiin gudaha waxaa ka socda dagaal aysan cidina u jeedin. Waxaa jira waxyaabo si tartiib ah u dila maskaxda qofka, uuna qofku mararka qaar aanan dareemin waxa agagaarkiisa ka dhacaya oo dhan. Midda ugu horreysa waa fikirka badan. Marka qofku habeen iyo maalin wax walba ka walwalo, maskaxdu ma hesho nasasho. Wuxuu ka fikirayaa mustaqbalka, wuxuu ka fikirayaa dadka, wuxuu ka fikirayaa qaladaadkii hore. Ugu dambeyn wuxuu dareemayaa culays aan muuqan. Fikirka badan wuxuu qofka ka qaadaa hurdada, farxadda iyo deganaanshaha qalbiga. Waxyaabaha kale ee maskaxda dila waxaa ka mid ah isbarbardhigga dadka aan waxba agtaada ka ahayn. Maanta dad badan waxay noloshooda ku cabiraan waxay dadka kala haystaan. Markay arkaan qof guulaystay, waxay dareemayaan inay iyagu waxba haynin. Laakiin qof walba wuxuu leeyahay waqti u gaar ah. Nolosha dadka oo dhan isku mid maaha. Qof baa maanta hooseeya, qof baa maanta koreeya, adigana biri ayaa laga yaabaa inaad horumarto. Haddii aad had iyo jeer dadka qaar eegto, waxaad iloobaysaa safarkaaga. Sidoo kale, maskaxda waxaa dila xaaladaha xun. Marka qofku mar walba lagu yiraahdo waxba ma tihid, ma awoodid, waad guuldarraysan doontaa. Ereyadaas waxay dhaawacaan qalbiga qofka. Mararka qaar dadka ayaa ilooba in hal erey uu qof burburin karo. Waxyaabaha kale ee maskaxda dila waa kelinimada iyo murugada la qariyo. Qaar badan waxay dadka tusaan inay fiican yihiin, laakiin gudaha waxay ka tabanayaan xanuun weyn. Waxay rabaan qof fahma, qof dhagaysta, qof ku yiraahda wax walba way hagaagi doonaan. Marka qofku wax walba qalbiga ku uruursado, maskaxdu way daashaa. Waxaa kaloo maskaxda dila quusta iyo rajada oo lunta. Mararka qaar, qofka mar walba aaminsan inaysan noloshu isbedeli doonin, wuxuu bilaabaa inuu ka quusto riyooyinkiisa. Wuxuu iska daayaa dadaalkii, wuxuu lumiyaa hamigii uu lahaa. Laakiin xasuusnow, xitaa habeenka ugu madow subax baa ka dambaysa. Maskaxdaada sidoo kale waxaa dhaawaca dadka sunta ah, dadka mar walba tamartaada dilaya, dadka niyad jabinta kuu sheega, dadka aan weligood ku arkin ama aanan arag wanaagaaga. Mararka qaar inaad dadka qaar ka fogaataa waa badbaadinta naftaada. Haddii aad rabto maskax caafimaad qabta, baro inaad nasato, baro inaad ducaysato, baro inaad dadka wanaagsan la joogto, baro inaad naftaada jeclaato. Ha ku noolaan fikir badan, ha isku ciqaabin khaladaadkii hore, ha rumaysan hadal kasta oo la yiraahdo, sababtoo ah maskaxda caafimaadka qabtaa waa furaha nolol wanaagsan. Midna xasuusnow, dadka ugu xooggan ma aha kuwa aan weligood dhib dareemin, waa kuwa dhaawacmay laakiin haddana isku dayay inay sii noolaadaan. Sidaa darteed, ilaali maskaxdaada si aad u ilaalin lahayd qalbigaaga. Sababtoo ah marka maskaxdu jabto, wax badan ayaa qofka ka burburaya. Laakiin marka maskaxdu hesho rajo, iimaan iyo deganaan, qofku wuxuu moodaa inuu mar kale istaagi karo. Taasina waa xaqiiqo.